qaybta labaad dabashan qiimaale waa marka la barnaamijkeena falanqaynta jimcaha barakooyinka ba korkeena aade qaybta dabashan qiimaale barnaamijka falanqaynta waxaan ku eegnaa in arinta horumarada caalamka iyo dibindaabyada isdaamidaabyeenaya adduunka horta dagaalkan Ukraine qofkii wax ka baran kara iyo dalkii ka diyaar garoobi kara iyo cidii wax fahmi kartaa waxay joogan meel aad u fiican waxa la fahmay adduunkan sida la isku dominate gareeyay ama loo kala gacan sareeyo sida loo kala maartay la isku maartay loo kala maartay bursashada adduunka haday tahay technology haday tahay bangiga caalamiga haday tahay Swift haday tahay nidaamka communication-ka iyo isgaarsiinta haday tahay satellites haday tahay qalab diyaaradeed haday tahay wax badan baynu runtii aan aaminsanahay inaad ka fahanteen wararkan markii nahno ruushka halkaas cunaqabtayn laga saaray qodobkaas cunaqabtayn laga saaray waxa laga saaray diyaaradihii qalabkoodii spare part-goodii waxa laga saaray hawadii waxa laga saaray lacagtii Swift-gii iyo qaabkii lacagtii la soo gudbinay waxa laga saaray macnaha gaasaskii waxa laga saaray tumbooyinkii soconay waxa laga saaray xubinnimadii ciyaarihii baa laga saaray Olympic-dii baa laga saaray kuwii kale FIFA laga saaray waxaas markaad ogaato waa fixed game baa la yiraahdaa marka fixed game macnaheedu waxa waaye yani salahan hadaad igu tiraahdo ka waran garsooran ku noqonaya coach kan oo bahasha frimbireerka yeeriya ma ku noqonaya ciyaar laakiin natiijada ciyaarta aad ogtahay oo marka aad gool dhaliyo aad hayso goolka waxa kama jiraan laakiin marka oo ninka kale iga soo horjeedo gool dhaliyo la dhahay laba gool buu dhali waa ciyaar ma ogtahay loo yahay the game is fixed natiijadiisa ninkii baa siiyo maxaan ka ciyaaraya marka aniga waxaan ka ciyaaraya malaha moogta just moogta ii sheeg waa ana la igu ciyaaraya moogta marka adduunkan waa fixed way muuqata laakiin waa fixed wax laga qaban karo macnaheedu maaha in la gif ab gareeyo la yiraahdo waxa meeshan lagama gaadhayo wallahi hadda waxma qabsan karno dalal badan ba hadda baraarugay oo aaminsan fixed game kan daldaloolu leeyahay meelo daldaloolaa buu leeyahay daldaloolada uu leeyahay waxa kamid ah in la fahmay oo gurta miilu la fahmay waxa kale oo kamid ah aqoon ahaan adduunka marba waxba hogaami jiray adduunka waxa hogaami jiray warshadaha ayaa mar ahaayeen maartay horta bil aadanuhu muxuu ka yimid from hunting to gathering somaha halkaas ay yiraahdaan moogtay dadka taqiyaanka macnaha waxa weeye ugaarsato kadibna in la isku yimaado dad marka hore iska waylaho oo duurku kala jiro nin walba wuxuu meesha Soomaaliya ka tirada nin quwa xelan nin iska baqada hal qarabsado meelahaas oo kale iska ahay markii dad isku yimaadeen meel bay tageen markay meel dageen dadku ay meel marba koomka waxa kaliya ku noolaa dinosaur iyo maartay sheegay iyo xayawaano kale oo sii horeeyay shimbiruhu markay yimaadeen shimbiraha la keenay aadanuhu yimaadeen ayaa markaas laga hadlayaa bini'aadamku waxay ku noolaayeen markaa xayawaankan marba qayb iimaanayay abuurta ilaahay wa ciyaad billah macnaha hatta saynis yahanada aaminsan hatta nimanka dabiiciyiinta leeyahay dabiiciyiintu waa niman aaminsan wax walba iyaga dabiici isku sameeyay marka cilmiga aad akhrido waxyaalo badan aad fiiriso waxyaalo badan isku day inaad wax ka barato waxaad ogaanaysaa qolo walba waxay aaminsan yihiin dabiiciyiintu salaam waxay aaminsan yihiin quruxda iyada is samaysay cirka iyada is sameeyay waa iska يعني وضعيفين لكن سي هادنا logically waxay dadka kala midaysan yihiin marka ma dadka diimaha leh waxay kala aaminsan yihiin diimaha samaawiga dadka aaminsan waxay kala midaysan yihiin mudooyinka inay jireen inay kala iyo layerska yani maartay sidii dadku wixii kala sareeyeen oo kala aaminsan yihiin halkaas marka laga fiiriya marka waxa laga qaataa ayaga wixii ay logic u arki waayaan ba waxa laga tusaa inay logic tahay oo waayo waxa loo sheegaa عقلك iyo xigmada waxa badan way xigmada ilaahay baa iskale aqliga laakiin waa inta ilaahay ku siiyay adiga marka hore mid walba ilaahay baa laakiin inta adiga marka adaa kugu shubay inta sada haysta inta aqliga maamula sometimes aqliga ku siinaya laamiga qaado dadka aad aragtay maxay tahay sheeg lugu marka qaar wuxuu ku siyaa gaar saas oo kale laakiin xigmadu waa waxa ku dhisi kara wax weyn ay dhisi karto kolka adduunku marka marba heer uu marayay markii dambe beera la idhi dhulka inuu wax ka soo saaro haddana la soo gaaro beeraha la gaaray badda la gaaray badu timid haddana badda inuu wax lagala soo baxo waa la sii hormarayay macdantu timid
batroolku yimid warshaduhu baa hadeerta maraya marka hadeerta adduunku siduu meelaha u daldaloolada kale yahay gamekan the fixedka waxa waaye ama ciyaartan natiijadeeda looga waxa waaye oo aadka fursada weyn u ah oo runtii cid walba fursad waxa weeye qaabkan waxaan marka horeba loo monopoliga loo haystay in dib loo baandheeyo ama in lagu kala tago salaam xal baandheynaya marka xal baandheynaya qaramada midoobay Soomaalida dhihin dalalba powerful oo shan dalba waxay yihiin permanent waxay leeyihiin permanent vote bay leeyihiin veto bala veto cod buu leeyahay horta waa permanent oo waa joogto oo ma dhacaan lagama maartay sheegeen waa abadi haddana vote joogto abay leeyihiin waa codaynaya mar walba waa laba haddana veto bay leeyihiin the fetus waxa waaye haddana way diidi karaan go-aankii golaha ammaanka 14 dalal kale isku raaceen toban waa iska magacu yaala cod way leeyihiin yes waa fiican yihiin laakiin sidii haddii codka dibna qiixan u yimaado waxa ma tarayaan toban marka waxa weeye hal dal bay surtaay kara codka dibna qiixan isticmaali karaan nay buu dhahayaa waa lagu kala tag marka taas horta waxa loo kala dib u baandhay waayo waxaan xal leeyahay waa idinka violation ku sameeyay idinka violate gareeyay waad violate gareyseen because wadamaad ku duusheen waad violate gareyseen because waad baabi'iseen waad violate gareyseen because waxaad ku sameyseen yani doonta baad u dhigateen marka horta bal marka hore baanteeno tan kale wadamo adduunka baa ka maqnaa waxaana idinka isla ogaa marka hore waa qodobka waxa weeye nidaamka dhinaca dhaqaalaha IMF hadhihin World hadhihin Swift hadhihin dib baa loo habeyn karaa waxa laga dhigi karaa wadamada sovereignty kale hada maalin dhaweyto wuxuu yiri Putin madaxweynaha dalka Russia wuxuu dhahay adduunku maanta wuxuu ogaaday buu waa shalay ama daraad I mean maybe 2 days 3 days buu ahead hadda exactly maanta ma hubo waa weekend hadeertoon dhamaaday ayay ahayd maartay marka laga hadlayo weekend hadeerto maanta inaga jamcaan oo dhamaanay baheed wuxuu dhahay adduunku wuxuu ogaaday barta Twitter ku soo qoray waad fiiri kartaa adduunku wuxuu ogaaday buu yiri in wadamada ayuu yiri qarbigu lacagii la dhigtay ay tugayiin oo ay xadi karaan oo wadamada sovereignty-gooda ay lacagta ay lahaayeen ay wadamo lacagna waa qof leeyahay lacagu dhowr nooc ay kala baxaan lacag waa qof shirkad baale oo ama ha noqoto cooperative ha noqoto ama ha noqoto shirkad leeyahay oo shirkad magac shirkad bay ku taala lacagna qof baale waa personal account oo markaasi isaga leh ama isagu shirkada ka sameeyo ama wax kale ka sameeyo lacagna waa lacag sovereign wealth baa yiraahdaa waa lacagta dalku iska leeyahay dalalka qaarkood baa lacag u yaalan bankigan ku yaala New York oo kale wadamada qaarkood baa dahab ku kaydsada qaar baa waxay ku kaydsadaan wadamada carabta aad ugu badan Switzerland oo kale marka lacagtii ruushka ee u taalay waa lacagta adaga waxa loogu talagalay lacagta inaad lacagta dalkaaga ku ilaaliso mar walbana maalgashiga wadanka mar walba loo maalgashanayo waxa la eegaya wadanka suuqyada weyn lacagta u taalay bangiyada caalamiga marka waa bangiyo bari hore system la sameystay waay oo la yiri wadankan si loo ogaado wadanka wadan horta dhaqaale inuu yahay waynaad bankiga Switzerland ama kan New York ama kan Paris aad soo dhigataa aad bilaayin dollar soo dhigataa lacagtii baa maray laga xayiray ruushki marka wuxuu ku leeyahay lacagta anaga ba iska lahayne see loo xayiri karaa marka wuxuu ku leeyahay tuuga yihiin hal loo ogaado buuri adduunkii baa ogaaday buuri wuxuu ku leeyahay adduunkii baa ogaaday ruushkuna lacagta lama haysan karo fiir marka waxyaalaha la saxiix kare ka mid ah marka Swift-ga waa xalayri waa madax banaay waa shirkado institutions waxa weeye maaliyadeed oo adduunka oo 11,000 oo maaliyadeed isugu tahay waa hab loogu talagalay in lacagaha lagu kala wareejisto habkii marka maxay tahay in lagu daro shuruudaha ba imaanaysa haddii uu sii jiray ama wala baabina ama uu sii jiray in lagu daro la yiraahdo haddii wadamo is qabsadaan arinta waxay kuma qosayay dad maaliyada isku tagtagay adduunka isku tagtagay baa tiini faraaka qaada ama loo kala to wadamada qaarkood waxay ka fikirayaan sida Shiinaha, Ruushka, Hindiya, Brazil, South Africa waxay ka fikirayaan inay hab parallel oo dhinac socda ka la sameeyo waxaasoo dhan waxay ku tusinaysaa burburka adduunka ku imaanaya dadka qaarkood rajo yar bay ka qabaan marka in la adduunka dib loo hagaajiyo laakiin waxay ku leeyihiin this is one next global next macna waxay ka soo jeedaa fixed waxa weeye wadan burburay waa adduun burburay waa caalam burburay waaye oo sii burburay waana laga yaabaa inuu akhrisamaan bataayo ay burburka caalamka halkan ay kasii bilaabanayso marka adduunka halkaas la kala marayaa يعني waxaa la kala marayaa gumaysi dhaqaale gumaysi maaragtay siyaasadeed taxalufiyo hadeerto waxaa laga fakarayay
waayadii ugu dambeysay oo dhan iyadoo dhibaaxadiga xanuunka COVID-19 ka faafa daran adduunka haystay waxa laga fakarayay dad badan ay ka fakarayeen they have been saying in ay leeyihiin okay naga dhaaf dhaqaalaha militariga iyo waxyaalaha lagu bixiyo aan yareeyana xagga science-ka ayaan lacag badan ku bixinana si adduunka caafimaad fiican loo helo waxyaalo badan loo helo hadda tii waa la bedelay hadda dagaalkan ruushka bedelay نقول ترامب وحرية 2% أو GDP واحد لو يقضي the gross domestic product لو حصار كجود وطن كستا in 2% إن لو جب بحيو دفاع أما defense إن لو جب بحيو وده ما ده قاشم برضه الناتج وحول is not fair أمريكا إن كريجي والعقد أنت صبحيه هذا ولا قد يدي واجه سوتش أو شرم الكويت يدين today هذا رسالة واحد نحتاجنا أنت ولا أنسي waddan walba wuxuu leeyahay 2% baan ku bixinayaa waa lacag aad u badan wax soo saarka guud ee dalka oo dhan dadka 2% ayaan militariga kaliya gelinay waa lacag aad u lacagta sorkay dhabaxaas ay ku dhacaysaa waxyaalaha kale ee social development oo dhan bay ku dhacaysaa caafimaadkii educationkii moogtay infrastructure wadanka lagu sameeyay yani waxyaalaha science-kii iyo maartay research-kii cilmi baaritaan wixii oo dhan baad bay maartay dhabaxa ku dhufanaysaa taas maxay ku tusinaysaa marka xagee loo socdo marka dagaal baa loo socdo xagee laga tagay marka horumar iyo waxa laga tagay human rights iyo waxyaalaha la sheegay sheekooyinka soo dhan warka way u furnaa marka laba ay noqonay in taas laamigaas la qaado oo wadan walba wuxuu gurubsan karo hub ciidan nuclear fasahaad wax walba ay gacanta lagu dhigi karo iyo in dib adduunku intuu isugu soo ururo la wada hadlo oo leeyahay waxaan waalidan inaga daay waxa ugu dambeysay darkiiseen ruushka laga mamnuucay in hawada sare baxthi lala aado oo dalka reer Yurub aadeen waxaas oo dhan waxa loo arkaa in ay xaalad oo kasii darayaan runtii arinta ruushku laftiisa u sameeyay waxa iyadana ay daboolka ka qaaday oo waniga marka horeba qaybta hore ku sheegay in ay u banaystay isaguna wadan xor ah oo caalan leh xuduud leh iskaga duur oo ku durduriyo cagaha oo cagta mariyo yani isagoo ku andacoonaya meeshan waa la soo fadhiisan doona nugu yar baa la keeni doona dad naasiina imaanaya waa kan sheekooyinta maaragtay runiya beentaka doona ma noqon kara laakiin laga wada hadli karo إلى هذا وعدينا الله ما هيو أولي نقول بالكيني كم بالو آسي تبالو أنا لو هندي وأنا لدبي وأنا لاصو السعودي ودن حوق لمسوق كرا أنت لون تلاقي قلي وحاصل أم بشيكري لكن تبان وحي أمسينهن إن وحياة بدن إلا جوال الله الله أكره أو ضد كاسنا ضد أهل أيهين يعني ضد مركب اسكو أمد هاجري isku isirna marka qaarkood si uun u ah haayana oo dabgaliyay taasna weelay marka adigu adduun gacmaha lagu qaatay sharciyada ninkii xoog weyn ninkii wax bartay ninkii horumar samaystay ninkii dawladnimo soo bistay ninkii midnimo leh ninkii yaani technology iyo aqoon iyo xuduud iyo wadamo iyo wax cishimista leh wax ka yahay weey laakiin nin ay Soomaalida maanto meel ay Soomaalida maanto ay wax ka noqon karto ma Soomaalidan u kala cararasa maxay xildhibaanka مسيركودي بقى نقضي حلبان مدحدودي أي نقطي هبل إن بدلوا أيام مبدأ هدف كبير هاي حتى يعني هدف كودي وياه كرسي كمان بنعنونا فداية هدف كودي وياه واكلا قوقعنا وهدف كودي هي محتى يشجعن يعني وحاليا بله الشركة والشركة سركال مريكان وحولي هذا السؤال أنا أقنصنا وحيكون شرتي ورك أربعة هذا دعوتين وله اللي يعني ورجيس كم دول يسمى مريكان كفورين بالاس وحولي هذا السؤال أنا أقنصنا صومالي قلوا وحي هذين سيقول أقنصي واش توبي وضع إيمانه يبور قبيل كسته بكوضة قلوا البساس واستماع قبيل كسته يجوا الصعداء بي واش تنتي مادام ورانا يعني ناقنصة أنا ناقنصة وأمد la isku diray oo yaani maxay ku kala go'ayaan maxaad u kala tageysaan madiin baad isku caburisaan ma umaduhu ayagoo diin iyo afaf iyo midab isku baabi'iyay bay hadana midoobaan oo wada joogan Irishki iyo Scottishki laga adkaaday ee dhulka la simay gabiga maryaha dumarka loo xiray ee lagu sameeyay yaani isir safaynta lagu sameeyay baa wali maartay isha Britain kamid waxaan u baahannahay markaa inaga waxaan u baahannahay adduunkan inta leeg Ukraine taas wuxuu ugu tumanayaa maxay tahay hayga raacin NATO hayga raacin bilo wadal sovereignty noqday oo marka hore midowga Soviet boqortooyo ka ilbaxsan marar badan ahaa jirtay Ruushka ka ahaa jirtay buu ugu tumanaya inagoo wiil iyo abtigi iyo inaadeerkii iyo walaalkii iyo qaraabadii iyo sadigii iyo soodigiisa oo wada walaala oo guriga tagtabaad ku gamisid
baa rabaa in yani la yiraahdo maarta isha aanu kala yaacno kala tagno waa arrin siyaasadeed waa sax laakiinse ha laga wada hadlo هم إنك هرت مركو ورا يسبب الحرض إنك ده دينا حتى على نيلها قيد صدحات قتي